السلام عليكم. هودا سare ee fog maanta waxaan idin soo gudbinaynaa macluumaad xiiso leh kuna soo dhawaada. weyninka iyo fiidsanaanta akoonkan ma aha mid caqliga geli kara bini'aadamka. si aan uga helno macluumaad wanaagsan waxaan aaminsanahay dhulkan aan ku noolahay in laga helo hawo la neefsado, heerkul lagu noolaan karo, biyo iyo baadbaa. weyninka iyo fiidsanaanta akoonkan ma aha mid caqliga geli kara bini'aadamka. dhulku waxa uu ka mid yahay bahda qorraxda, reer qorrax oo loola jeedo meerayaasha ku wareega qorraxda sida dhulka, mariiqa, maaraska. bahda qorraxda waxaynu dhacanaa galaksiga milky way, af carabi ahaana majaaratu darbi tabaana, af soomaali ahaana waddada caanaha u eg waddada caanaha. milky way waxaa loola jeedaa habeenkii markaad u soo baxdo bannaanka cirka markaad eegto waxaad arkaysaa wax cad oo aad moodid caana in lagu daadiyey. sidaas ayaa loogu magac daray milky way, darbi tabaana, darbi laban. galaksiga ama majaradu waa mid ka samaysan balaayiin xidig, meerayaal kala duwan, aadna u baaxad weyn. sidaa darteed waxaad maqli dad leh xidig hebel intaasoo sanno ayuu noo jiraa. tusaale ahaan xidiga shucaraa wuxuu noo jiraa intaas oo sanno. qorraxdana wuxuu ku weyn balaayiin jeer maadaama uu iftiinku yahay waxa ugu orodka dheer ee ugu iftiinka dheer ee bini'aadamku arkay. si aad u ogaato qorraxdu waxay noo jirtaa 150 milyan oo kiiloomitir. masaafada intaa dheer wuxuu nagu soo gaadhaa 8 daqiiqo qura. iftiinkiisu halkii ilbiriqsi waxa uu jira 300,000 oo kiiloomitir, taasoo ah inuu halkii ilbiriqsi u gaadhayo dayaxa. waxaa la mid ah mawjadaha raadiyaha ama mawjadaha caadiga ah sida qof taleefon markaad ku hayso ama raadiyoga aad dhegeysanayso jaraya 300,000 oo kiiloomitir halkii ilbiriqsi. si la mid ah iftiinka. intaas ayaan ku dhaafayaa. salaamullaahi calaykum.